wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil kale ayaa kormeer ku fidiyay deegaano badan oo ku teesan gobolka Hiiraan. deegaanada ay wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa ay booqdeen waxaa kamid ah deegaanada Xuujub, Faafaf iyo Gumbar iyo sidoo kale Baradheer oo ka tirsan gobolka Hiiraan. wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ugu soo hambaliyeen gulaha ay ka gaareen howlgallada dhawaan laga hirgelinayay gobolka Hiiraan isla markaana looga saarayay argagixisada al-shabaab. waxa gobolada dalka oo ka socda badheen howlgalaha lagu baacsanayo isla markaana looga saarayo haradiga al-shabaab. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa ayaa muddooyinkii dambe halkaasi ka waday howlgalo lagu dhiirigelinayo ciidanka iyo sidoo kale ciidamada deegaankaasi, waxaana ku wehelinayay isla markaana kormeerkan qayb ka ahaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo qayb ka ah howlgalka lagu fulinayo isla markaana deegaanadaasi laga baacsanayo kooxda al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu taliyuhu u sheegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan in howlgallada la sii wado ilaa deegaanadaasi laga saaro al-shabaab. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa isna halkaasi ku sugnaa waxaana ciidanka u jeediyay daaran ku aadan in howlgallada lagu baacsanayo al-shabaab dhabi ahaanba laga fuliyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay kamid yihiin deegaanka lagu magacaabo Faaf, Gumar iyo sidoo kale Baradheer ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku sugnaa ka tirsan al-shabaab isla markaana alqaday dhibaato ku hayay shacabka ku dhaqan deegaanadaasi. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgallo weyn muddooyinkii dambe ka mooday qaybo kamid ah gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka saarayeen kooxda al-shabaab, waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Yusuf Raage iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo horey halkaasi ku booqday deegaanadaasi taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo qaybada kala duwan oo kormeero ku kala tagayeen deegaano ka tirsan deegaanada maamulkaasi. waxaana ilaa haatan jira in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay xiligan heegan buuxa la geliyay si deegaanadaasi looga saaro al-shabaab oo ku dhuumaaleysanaysay. waxaana uu sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kormeerka ku wehelinayay oo ku tagay qaybo kamid ah xiriyaha ciidanka ay ku sugan yihiin gobolka Hiiraan isaga iyo taliyaha ciidanka qaybta kale howlgalka qayb ka ahaa ciidamo badan oo kamid ah ciidanka ku sugnaa gobolka Hiiraan iyagoo sheegay ciidamadu isla markaa faayin ka bixiyay deegaanada ay ka qabsadeen al-shabaab ay kala wareegeen. waxaa daaraankii ugu dambeeyay oo halkaas ka jeediyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isagoo ciidanka u sheegay in howlgalka la sii wado ilaa amar dambe ilaa haradiga al-shabaab deegaano badan ku sugan xilligan laga saaro. howlgalka lagu baacsanayo kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii waxa uu ka socday qaybo kamid ah gobolka Hiiraan isla markaana si rasmi ah ay loo sheegay in deegaanadaasi si rasmi ah al-shabaab looga saaray oo ay jiraan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ilaa haatan ku sugan yihiin kooxda al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Raage iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ayaa wali howlgal lagu baacsanayo al-shabaab halkaasi ka wada iyagoo goor dhaweed halkaasi gaaray si halkaasi ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka halkaasi ay u dhiirigeliyaan howlgalka ay ka fulinayaan deegaano ka tirsan gobolka